عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan walaalayaal ilaahay idinku dhowro meel kasta aad iga daawanaysaan kusoo dhawaada darsigeena qaybtiisii labaad. Barbaarinta ubadka waa arrin aad u muhiim ah oo dad badan ay iska indha tirayaan. Waxaad arkaysaa aabihi oo u xooladayayo ilmihiisii asigoo u arkaya in muhiim ay u tahay ilmaha, bal wuxuu ilaabay barbaarinta ubadka inay u baahan tahay in ilmaha lala fariisto oo lala sheekaysto. Ubadka wanaagsani waa riyada hooyo kasta iyo aabo kasta uu leeyahay misna ay leedahay. Si ubadkaaga uu u noqdo ubad barbaarintiisu ay hagaagsan tahay, samee arrimaha soo socda. Ku barbaari ilmahaaga caqiidada saxan, bar tiirarka islaamka, iimaanka iyo weliba arrimaha qaybta ka ah sida jannada iyo waxa lagu galo, naarta iyo waxa lagaga fogaado qabriga iyo dhibaatadiisii. Xooji dareenka ah in Alle uu arkayo markasta iyo meel walba uu joogo. Ku soo jeedi ilmahaaga awoodda Alle inta ay la eg tahay iyo inuu Alle uu awoodo wax kasta. Ku xooji jaceylka Alle ilmahaaga qalbigooda. Siyaabaha aad u dareensiin kartana waxaa ka mid ah inaad u sheegto nicmooyinka Alle tabaaraka wa tacaala oo inoogu deeqay. U sharax aayado iyo axaadiis aad u soo xushay kuwaas oo ka hadlaya jeclaysiinta khayrka iyo uga digidda xumaha. U kaxee mararka qaarkood booqashada qubuurta ama cisbitaalada bukaanadu ay jiifaan. Ku barbaari ilmahaaga akhlaaqda wacan. Ku barbaari runta iyo ilaalinta amaanada, toosnaanta, caawinta dadka baahan, wanaajinta martida iyo wixii la mid ah. Bar axaadiista ka hadlaysa wanaagga ay leedahay akhlaaqda wacan iyo cawaaqibta ay leedahay dhaqan xumada. Ku barbaari ilmahaaga xaq dhowrka dadka kale. Waxaadna ku barbaarisaa baarinimada iyo xaq dhowrka waalidiinta. Ku barbaari ilmahaaga ixtiraamka iyo maamuuska qaraabadoodii. Ku barbaari inay xaq dhowraan jaarka iyo dadka waaweyn. Ku barbaari inuu ilaaliyo aadaabta guud ee islaamka sida aadaabta cuntada, salaanta, fasax weydiisashada, fadhiga iyo weliba aadaabta hadalka. U suurtageli ilmahaaga inay dhexgalaan carruurta kale haddii aysan lahayn carruurtaasi wax aad uga baqayso ilmahaaga. Ku baraaruji qaladka uu galo, hana u ciqaabin adigoon u digin. Si dabacsan ugu sheeg qaladka uu galo, ha ku ciqaabin qaladka ugu horeeya. Jaceylka ubadkaaga ha noqdo mid dhexdhexaad ah. Dareensii inaad jeceshahay, laakiin ha ka badinin kolkoolinta siyaadada ah. U diyaargarow ilmahaaga marka uu soo dhalanayo. Ilmaha weyn ee sii joogay waxaad bartaa inuu u adeego hooyadiisii, una keeno dharka nuunaha, waayo haddii aan la dareensin inuu ka weyn yahay nuunaha, waxaa dhici karta inuu xiqdi u qaado kadibna uu naco isagoo weliba u arkaya in la afgembiyey lana boos tuuray. Kula dhaqan ilmahaaga garsoorka, ha u kala eexan, waayo eexashadu waxay ka mid tahay waxa ugu badan ee keena fakashada ilmaha iyo fashilka guryaha. Maxaa yeelay guriga aan cadaalad ka jirin ma dhisnaanayo. Ha u ogolaan ilmahaaga inay xirtaan dharka aan habboonayn, sida dharka aan waafaqsanayn labiska islaamka. Ku barbaari ubadkaaga asturnaanta iyo inaysan ka raali noqon in la arko ayagoo qaaban. Kala gey jiifka ilmahaaga adigoo kala duwaya gabdhaha iyo wiilasha. Bar ilmahaaga idin qaadashada marka ay idin soo gelayaan, gaar ahaan qolka jiifka. Haddii ilmaha midkood idinla seexdo qolkiina, ha samaynina wax xidhiidh ah. Bar ilmahaaga inay ka laabaan indhahooda muuqaalada xunxun. Ha u ogolaanin ilmahaaga inuu daawado filimada iyo sawirada xunxun iyo inay akhristaan sheekooyinka anshax xumada ah. Fuli codsigoodii si dhaqso ah. Ka ilaali ilmahaaga qodobada soo socda. Ha liidin ilmahaaga.
weliba dadka hortooda ha ku xumaynin ilmahaaga. Ha ka jarin hadalka marka ay kula hadlayaan. Ha ugu yeerin ilmahaaga tilmaamo xunxun sida inaad ku tiraahdo oo kale maangaab iyo dabaal iyo wixii la mid ah. Ha ku cabsin ilmahaaga jinka, waraabaha, mugdiga, weliba marka uu ooyayo. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. La wadaag videogan walaalaha kale. intaa mid kale aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay Ilaahay ha idin barakeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.